dugsiga Cismaan bin Cafaan ayaa waxa uu munaasabad ballaaran u qabtay 4 ka mid ah ardayda dugsigaasi oo kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ay qaado hay'adda Geeska Afrika ay hoos yimaadaan iskuuladani waxaana munaasabadii 40 arday lagu abaalmarinayay ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Liibaan Yuusuf Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir maamulka kala duwan iyo macallimiinta dugsiga Cismaan bin Cafaan waalidiin marti sharaf kale oo aad u tiro badan iyadoo ay xusid mudnayd in kaalinta koowaad ee imtixaanka ay qaado hay'adda Geeska Afrika uu galay dugsiga Cismaan bin Cafaan waxaana munaasabadii ardaydaasi loo qabtay ee lagu abaalmarinayay faahfaahin ka bixiyay maamulaha dugsiga Cismaan bin Cafaan Sheekh Yuusuf waxaana hadaladiisa ka mid ahaa kolley waxay daaran tahay xafladeenan aynu maamuusayno oo aynu hambalyeynayno guud ahaan labadii galaas ee iskuulka ka takharujay ee dhameeyey guusha u soo hooyey inaynu u hambalyeyno si gaara ardaydii afarta ahaa ee imtixaankii hay-adda Geeska Afrika ay qaaday iyagu kaalmaha waaweyn qiimaha badan runtii galay guusha iyaguna soo hooyey ayaynu si gaara u sii ikraamayna ama u sharfaynaa iyada oo sidaa sheekhu uu sheegay ay dee dhiirigelin inaga tahay inay halkaa kasii wadaan inaan hore u tallaabsano oo maaragtay iskuulkeenu horumar gaadho saddex arrimood kow dhammaan saddexda hablood iyo wiilka kaalmaha galay waa xamalatul qur'aanka xifdisan yihiin sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Cismaan bin Cafaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Liibaan Yuusuf Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir waxayna dhammaantood halkaasi uga hambalyeeyeen ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka shahaadiga ay qaado hay'adda Geeska Afrika ee dugsiyadani ay hoos yimaadaan waa madal hambalyo runtii ardayda juhdiga badan soo bixisay ee soo kifaaxday ee aakhirkii halkaa timid waxaan leenahay hambalyo waxaan kaleenu gelayaa ka cismaan ahaan ka secondary ahaan waxaan ka ballan qaadaynaa ardayda koobaad waxaan ugu talagalnay in sanadka koobaad iyo sanadka labaad iyo sanadka saddexaad iyo sanadka afraad intaba inay bilaash ku dhigato scholarship saddexda ardayga kale iyagana waxaanu ugu talagalnay ardayga 6aad 1 sano oo bilaasha ardayga 9aad 1 sano oo bilaasha ardayga 15aad 1 sano oo bilaasha isaguna sanadka koobaad in iyaguna bilaash ku qaataan waliba taa waxaa sii dheer waxaan ugu talagalnay saddexda arday aqoontooda iyo akhlaaqdooda ayaa u haysa saddex sano kale u horeyna hadday akhlaaq iyo aqoon la yimaadaan way hore ka soconayaan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa iskuulka muxuu ahaa ardayda dhammaan iskuulka Cismaan bin Cafaan si gaarana waxaynu u bogaadinaynaa inuu u hambalyeynaa guulaha ardayda gaadhay ee afarta ee Sheekh Yuusuf halkan kaga sheekeeyay dhalinyarada kaalmaha wanaagsan ka galay waxbarashadii ay ku soo jireen muddada farxaddaasi runtii way dhiiri gelinaysaa dhalinyarada oo tartan baa la soo galay markii imtixaan la galay markaa haddii la maamuuso oo loo sameeyo qadarin iyo weyneyn iyo xafnad waxay runtii sheegaysaa inay dhalinyaradu ku dhiiradaan inay kaalmaha wanaagsan galaan marka maamulkuna waa ku mahadsan yihiin dhalinyaraduna way ku mahadsan yihiin wiilal iyo gabdhaba waxa lagu tartamana waxa u qiimo badan waxbarashada waa la kala dheeree baa la yidhaha laakiin orod maaha waa tartan aan orod ahayn laakiin maskaxda lagu tartamayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa tartankaa waa gelin jiray iyadoo saas oo kale loo fadhiyo odhan jiray waxa ayaa garanaya qofka u dheereeya runtii dee wuxuu ahaa qof miisaankiisa leh markaa waxaa aada iyo aada u qiimo badan
waxa waxbarashada la idhaahdo in kor loo soo qaado hadday tahay dhinaca diinta iyo hadday tahay maadigaba. ilmaha qur-aanka barta marka uu barto ee uu dhameeyo in dabeedna iskuullada loo wareejiyo ardaygaasa waxaa anfacaya aqoontiisuna ay sarreynaysaa. ardayda kaalmaha ugu horeeya galaano waa ardayda noocaas. waan hambalyeynayaa ardaydan kaalinta 1 iyo 6 iyo 9 iyo 15 galay, 3 wiil 3 hablo gabdhood iyo wiilkaba waan hambalyeynayaa. ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu siiyey ardaydii kaalmaha hore u gashay dugsiga Cismaan bin Cafaan. abaalmarintaasi oo isugu jirtay abaalmarino qaali ah oo ay ka mid ahaayeen dahab, laabtabyo iyo agabka dirayska ay ardaydu xidhaan. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Ariel TV, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. haddaba macmil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.